وعنا wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada warkii telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV idinka imanaya stuudiyihiisa magaalada Hargeysa qodobada daawadayaal habeenkan caawa warka ku maqli doontaan waxaa kamid ah wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha علي محمد ورن عدى أيام أنت سر رسمية وقالوا وريجي حلكي وسيركي هري وسارة داسي محمد نور عرالة دور حفلة بلارن وما أنت لقوا قبتي هوتيل منصور يا مقالة هرجيسة أيام لقى قد واقعي قدي قبن قابض الشركة هذا عليه سنود جوردي اللي حادي كسوريكتي مركي لا أساسي أرور كسوك هاي بان أيا لقو قبطي هوتيل إمبيريال مقالة هرقيسة dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheerna waxay walaac ka muujiyeen tahriibta iyo shaqo la'aanta ka jirta gobolkaasi daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobadii warka haatana isagoo dhameystiran wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha علي محمد ورن عدى أيام أنت سر رسمية حلكي وقلا وريجي وسيركي هري وسارة سي محمد نور عرالة دور مناسبة سير سرالوس وقاسمة وحلك كل كلا وريجين وسيرك ورا وزارة أرمها جودها الصومال دكتور محمد نور عرالة دور يوسيرك عصبة وزارة أرمها جودها ومق عبي مدحوين أحمد محمد محمود سيلانيو هولك وزارة أرمها جودها مقالة هرقيسة مناسبة دنو يجوب شوق هايين سراكيش عيدا كقرنك قارك مده حل بنده برلمانك معمول كي قدومياش قبلة الصوماليلان عقال سلادين وحقرد شغالها وزارة هي مرتشرف كل عضو تربدان iyadoo mas'uuliyiinta munaasabadaasi ka soo qayb galay goobtaasi hadallo kooban ka jeediyeen oo ugu mahad celinayaan wasiirarka xilalka kala wareegaya sheeganayeen inay soo dhaweynayaan wasiirka cusub ee loo igmaday inuu gardaadiyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cabdisamad oo isaguna si haldoor leh uga hadlay waxqabadkii wasaaradda ee sanadkan sheegayna in ay soo dhaweynayaan wasiir Ali Maxamed Owraan isagoo tinayana wasiirka hore wasaaraddaasi Dr. Maxamed Nuur Caraale Door intaas kadib waxa ay gudun hadalka ka daba qaatay saraakiisha sare ciidanka qaranka Soomaaliland oo kala baxa booliiska laanta socdaalka iyo ilaalada xeebaha oo ay taliyaashooda guud goobjoog ka hayeen munaasabadan ay iyaguna sheegeen inay garab galayaan wasiirka cusub Ali Maxamed Owraan oo Ilaahay uga baryeen inuu xilkani u fududeeyo waxayna sagotiyeen wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Maxamed Nuur Caraale Door oo ku sheegay inuu ahaa ruux ku aanbaxay sugidda amniga iyo la shaqaynta qaybaha kala gedisan ciidanka Soomaaliland wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Dr. Maxamed Nuur Caraale Door oo isaguna munaasabadan hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay inuu ka faraxsan yahay inuu xilka u wareejiyo Ali Maxamed Owraan isagoo tibaxay inuu xilku yahay meerto soo dhaweynayo go'aanka madaxweyne Axmed Silaanyi ka qaatay inuu isku badaliyo shaandhayn isku sameeyo golihiisa wasiirada waxa intaas ka dib isaguna hadal ka qaatay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Ali Maxamed Owraan oo si farxad leh ugu mahad celiyay marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabada hadlay qorshaha uu doonayo inuu ku horumariyo wasaaradda mahad celin gaar ah u jeediyay wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Nuur Caraale Door oo sheegay inuu gaarsiiyay wasaaradda halkii ugu sareysay marka loo eego madaqada geeska Afrika geesta kale wafdi horkacayaan wasiirada cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland علي محمد ورن عدى وزيرك hore wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Maxamed Nuur Caraale Door ayaa kormeer indhaydheena ku samaray dhismaha cusub ee loogu talagalay wasaaradda arrimaha gudaha gabagabadina waxay mas'uuliyiintu isugu biyo shubteen hotel Mansur oo qada sharaf loogu sameeyay jacladii u dambeysay waa tan halkan waxa inta wasaaradda cusub oo dhismaheedu socdo waa dhismo 3 dabaq dadabka labaad waxa socda waxa kale oo meesha ka muuqda in deybkii dhamaaday waxa kale oo yana muuqda in masaajidka yana dhamaaday loo yaqaan gobolka dawladda waxaan islaatay meel aad inta wax la helayo marka runtii aad iyo aad bari وسكريا سويسي تلفزيون كما دحا بناني بولشو تي في مقالة هرقيسة xaflad ballaaran oo maanta lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa lagaga dhawaaqay gudiga qaban qaabada shirka hoodaale gudigaasi oo ka kooban 39 xubnood xaflad ballaaran oo maanta lagu qabtay hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa
ayaa lagaga dhawaaqay guddida qabanqaabada shirka Hoodaale oo ka kooban 39 xubno. xafladan oo loo sameeyay ku dhawaaqida guddidaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay isla markaana ka soo qayb galay guddida xalinta khilaafaadka shirka Hoodaale, salaadiin, cuqaal, culimo iyo madax dhaqameed kale oo aad u tiro badan. waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah salaadiinta ka soo qayb gashay kulankaasi. gudoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka shirka Hoodaale xildhibaan Maxamed Aw Axmed oo ka mid ahaa raggii madashaasi hadalka ka jeediyay ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada ay kulankaasi u qabteen iyo gabi ahaanba habsami u socodka howlaha kala duwan ee shirka Hoodaale halka uu marayo. sidoo kale waxa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed isagoo ku dheeraaday muhiimadda iyo qiimaha uu leeyahay shirku. waxaana hadaladii suldaanka uu madashaasi ka jeediyay ka mid ahaa guddida qabanqaabada ee laga aqbalay inaan u magacowno hawsha sacrifice ah ee aan lahayn mushqaayada ee ah arrin khayriya oo intaku qabanayaan iyaguna uu wax mushaarayo wax mushqaayada midna aan lagu xidhin ee laga aqbalay inay hawsha qabtaan iyaguna waa u mahadsanaya. afhayeenka guddida xalinta khilaafaadka Maxamed Muuse Deeriye oo ugu dambeyntii madashaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa halkaa ka akhriyay magacyada xubnaha guddida qabanqaabada oo ay tiradu tahay 39 xubnood. sidoo kale waxa uu sharaxaad ka bixiyay qaab dhismeedka iyo sida ay hawshu ugu qaybsan tahay guud ahaanba dadka shirka kala hagaya, sida waajibaadka shaqo ee uu yeelanayo shirgudoonka, afhayeenka shirka iyo guddida qabanqaabada. waa kan Maxamed Muuse Deeriye afhayeenka guddida xalinta khilaafaadka oo arrimahaasi ka hadlaya. waqtiga shirka oo ah 18 August ama 12 Shuwal tirada guddida qabanqaabada oo ah 39 xubnood oo ay salaadiintu soo xulaan. intaas waa intaa salaadiinta dhaqanka xilkooduna waa gudoominta shirka, xulista ergooyinka, xadidaadda tirada ergooyinka, magacaabidda xoghaynta shirka, hadal qaybinta iyo hogaaminta shirka, coduqaadidda iyo ku dhawaaqidda natiijada. xubnaha maanta la doortay oo isla maantaba xilkoodii la wareegay ayaa u ballamay in ay maalinta berri ah iska dhex doortaan mas-uuliyiintii maamuli lahaa isla markaana qaybsan lahaa hawsha shirkaasi. shirka Hoodaale oo 17 bisha Oktoobar ee fooda inagu soo haysa ka qabsoomi doona tuulada Agabar ay yeelan doonaan beesha bartamaha waqooyiga iyo galbeedka Hargeysa, iyadoo qabanqaabada shirku uu muddooyinkii u dambeeyay uu ka socday guud ahaanba gudaha dalka iyo dibadiisaba. sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka Sookaaya Baan ayaa maanta lagu qabtay Hotel Imperial ee magaalada Hargeysa. sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ururka hidaha iyo dhaqanka ee Sookaaya Baan ayaa munaasabad ballaadhan oo lagu dabaaldegayo sanad guuradaasi waxaa lagu qabtay hotelka Imperial ee magaalada Hargeysa. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka cusub ee wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Boobo Yuusuf Ducaale, maamulaha dugsiga Shaafi Medical College Maxamed Xirsi Cali, maamulaha guud ee ururka Sookaaya Baan Siciid Ibraahim Dool Guray, dhalinyarada kooxda hidaha iyo dhaqanka Sookaaya Baan, waalidiin iyo marti sharaf kale. munaasabadan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay maamulaha guud ee ururka Sookaaya Baan Abwaan Guray, isagoo oo ka sheekeeyay marxaladihii kala gadisnaa ee uu ururkani soo maray, waxaana uu sheegay inuu ururkani u shaqeeyo wacyigelinta dhalinyarada markastana uu heegan ugu jiro dhiirigelinta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. haddii kale beri ka maaliyo waxay ma doontahay inagoo kala diinan oo haddana isku cida inagoo aan isbaafgaranayn haddana isku ilmaaleela iyo wadeehela iyada oo intaas oo kalsha dadkeenu waxaa la yidhahdaa imika tusaale ahaan dadka caalamka inaga tegay waxay aanu galayaan indhayar
Obo Yusuf Ducaale wasiirka hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo wasiirka cusub ee wasaaradda deegaanka Shukri Xaaji Bandare oo munaasabadani hadallo qiimo leh ka soo jeediyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan umadina horumar ma samayso banaanana ma gaadho barwaaqana ma gaadho haddii ay ka dhaqaaqdo ay ka tagto rukunada ay ku taagan tahay oo uu dhaqanku ka mid yahay waxyaabahan ku guwaabinin waxaa ka mid ah magaca ururkeena oo marka qofku maqlo moodaya inaanu joogin hargeysa magaalada markaa intaana waa ka waaninayaan inuu qof waliba adkaysto qof walbana taqriibka waxay ka dhigatoon intaan qof islayno inaanu qori soo qaato ku dhufto ayuu tahriibku ka mid yahay waa tana aad ka qaadaysaan aabbaha waa tana aad ka qaadayso hooyada waa tana aad ka qaadayso intii ku arriminaysay ee aad la wadaagi lahayd ee korriinkaaga iyo aayahaga iyo noloshaada walahayd maca boobaha iyagana waa nula tegey hadda loo qadaa horta iska qabanayo sanadkan dad waaweyn noqon laakiin idinku kii bedeli lahaa ee ururin lahaa ee hayn lahaa ee halkaa kasii qaadi lahaa maanta haddaan odhan adeer halkaan wax ka wada halkaan wax ka qabta sideen wax la odhanaya aydaan odhan waa ayaalgahayd ku soo socotay nin ururinaya suugaantii iyo wax walba oo idinla iga qabto igala wareega oo halkaa kaskaado aan idiin sheegeen imika waxay nagu soo batay soomaha tahriibka ma u malaynaysa aniga laba inan oo dhalay inay xaggan dib ugu soo tahriibeen oy maanta magaalada hargeyso joogaan oy shaqana ka daydayanaysa waxaan aasasayaasha ka mid ahay macalinkaygii badbataagay magacan soo sameeyey markaa waxaan halkan horan badan kama odhanayo waxaan aada ugu mahadnaqayaa in ay hore usii socdaan ururka Sookaaya Baan Mukhtaar Jaamaciga oo ah gudoomiyaha ururka Sookaaya Baan oo halkaas isna hadal kooban ka soo jeediyay ayaa waxa uu dhalinyarada kula dardaarmay in ay taariikhda iska ilaaliyaan isla marhaantana ay wadankooda shaqo abuuris ku samaystaan ولا حكومة بين الناس واحد بدلي نعم بدلنا تبي تغنى دولنا وحويا مثلا ما في ما تجوا على طول صعنون لعنو وما له واحد حيلان وصل كل من يعني بدلنا يعني تروح كوانا هنا تاني هنا أوروبا في السماستان وهي بيت الوليد استوبران سيناء في الوليد على تنوع intaasi ka bacdi ururka Sookaaya Baan waxa uu munaasabadani ugu dabaaldegay sanad guuradooda lixaad ee ka soo wareegtay waqtigii la aasaasay oo ku soo bandhigay riwaayado kala gadisan iyo heeso tiro badan oo ay kaga hadlayaan dhibaatooyinka ay tahriibtu leedahay samarahantana dadkii daawanayay ay aad ula dhaceen gabagabadii waxa halkaasi ururka Sookaaya Baan uu shahaadooyin kala gadisan ku gudoonsiiyay xubnaha kaalmaha muhiimka ah kaga jira ururka Sookaaya Baan Cabdiraxmaan Cilmi Xirse telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Hargeysa halka daawadayaal wali nagala socotaana waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa walaac ka muujiyay tahriibka iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta gobolkaasi sida uu faahfaahinta warkan noogu soo diray Cabdiqani Iimaan magaalada Burco waa magaalo madaxda labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku nool dhalinyaro tiro badan kuwaas oo isugu jira ardayda ka baxday jaamacadaha dalka iyo dugsiyada sare maruu telefishinkan madaxa bannaan ee Bulsha TV mikrofoonka la dhex qaaday waxay fikrado kala duwan ka bixiyeen shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta Soomaaliland iyagoo dawladda uu ka arrimiyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan u soo jeediyay inay si dhaqso ah wax uga qabato shaqo la'aanta ballaaranaysa kana midhaliya ballanqaadyada waqtigii uu doorashooyinka ku jiray sidoo kalena waxay dhalinyaradaasi tilmaameen in isbedelka madaxweynuhu ku sameeyay golihiisa wasiirada aanay haba yaraatay waxba soo kordhinaynin maadaama ay yiraahdeen aanu ka weegin dhinaca dhalinyarada Soomaaliland Maxamed Cumar kana mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer haatan ardayda dhigata dugsiyada sare gaar ahaan galaasyada ugu dambeeya galaaska form 4
waxna waa wax dabiiciyan ah oo aan cidna lagu dhaliili karin waxna waa wax cid lagu dhaliili karo shaqalaanta ka jirta ha badato laakiin sidii loo yareyn lahaa inaan dadaalkeeda cidina u gelin ayaan ku dhaliilaya xukuumadda taas oo aan xukuumadda u soo jeedinayo aan leeyahay dhalinyaradu waa inagu ceeb in dhalinyaradeennu maalin walba ay ku idlaato badda laakiin diinta islaamku waxay fasaxaysaa qofka bani aadamka ah haddii uu nolosha qawado waxay u fasaxaysaa diinta islaamku inuu ka haajiro meesha uu joogo waxaan leeyahay madaxda ugu sarreysa dalka waa idinku ceeb in dhallinyaradiinnu ay ka haajirto waddanka cid kale oo ka hor istaagi kartaana ma jirto aan idinka ahayn xukuumadda lambar 1 ayay ka tahay waayo dhallinyaradii imka jaamacadda ka baxday ama waxbarashada ka qalin jebisay waxay lahaayeen aqoon baa laydinku qaadanayaa aqoonna laysku qaadan maayo ee si kale ayaa laysku qaadanayaa ninkii wasiiru jooga ama agaasimo jooga gacanta hayo waxba iyo aqoon hadduu doono ayaa la qaadanayaa marka kii kale waxay ku kalifaysaa dee mismiidaamiyo oo ama tahriib ama baxad soore ama dee kabadhadaaba iska fariisto wax kala garan waayo marka taasaa sababta taa waxaan ka qabaa haddii dhallinyarada shaqo loo abuuri lahaa oo shaqo la siin lahaa inaysan dalkooda hooyo iska joogi lahaayeen ayna meel laba ka aadi lahayn markaa shaqa la'aanta ayaa tahriibta sababtay waxaa sababatay shaqa la'aanta dhallinyaradii jaamacadaha dhammaysay waxay qabtaan markii waayeen waxaa sababaya inay dalalka qalaad aadaan ay iska tagaan ay tahriibaan ay go'doomaan markaa badaha ay ku baaba'aan oo saxaraa iyo xaaska iyo bahaluhu ku cunaan maxaad xukuumadda ugu baaqaysaa xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo wasiiradiisa iyo weliba dowladda oo dhan waxaan u sheegayaa dhallinyarada sida ugu dhaqsaha badan ugu degdegaa in loo sameeyo shaqo abuur loo sameeyo si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si xawlo naxdin leh u sii kordhaya dhallinyarada ka tahriibaysa gobollada dalka kuwaasoo u sii jeeday waddamada yurub iyo ameerika iyagoo khatar badan iyo dhimasho kala kulma saxaaraha suudaan halka qaar kalena lagu xidho jeelasha waddamada liibiya iyo talyaaniga cabdiqani iimaan bulsho t v madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo booqasho ku jooga dalka koonfur afrika ayaa cisbitaalka ku booqday madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika Nelson Mandela. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku sugan dalka Koonfur Afrika lugtiisa labaad ee safar ku galaan bixinayo 3 wadan oo Afrikaan ah booqashada ku tagay madaxweyne Obama ayaa uga golleeyahay sidii uu horumarin lahaa xiriirka ganacsiga Afrika iyo Mareykanka. madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa si rasmi ah ugu soo dhaweyn doona Mr. Obama iyo marwadiisa magaalada Pretoria maalinta Sabtida ah. labada madaxweyne ayaa yeelan doona kulan laba geesooda iyaga oo caawana isla cashayn doona. lama hubo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama inuu booqan doono madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika. dhinaca kale naxaaskii hore madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela ayaa sheegtay in xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagayso dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay. Winnie Nelson Mandela ayaa wariyaasha kula hadashay banaanka gurigii hore ee madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika. Nelson Mandela uu ku lahaa magaalada jimcihii shalay xilli madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika uu u jiifo maalintiisii labaad sanad cusbitaal ku yaala magaalada Pretoria. war rasmi ah kama soo bixin dowladda Koonfur Afrika kaasoo ku saabsan xaaladda caafimaad ee Nelson Mandela taasoo la sheegayo in xaaladiisa caafimaad ay wali halis ku jirto. khamiistii gabadh uu dhalay Nelson Mandela ayaa sheegtay in aabaheed uusan u muuqan caafimaad ahaan soo wanaagsananaya xilli bay tiri uu daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudano intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa baan idinka haynay habeenkan caawa. warka xigeynta aan ku kulmi doono waa Hodan Maxamed Cilmi iyo dhammaanba asxaabtii igala qayb qaadatay tabinta warkooda idinkaga tagaysa. salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.